maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay dil toogasho ah ku fulisay ninkii dilay wariye Xasan Yuusuf Absuge oo kamid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed laguna dilay magaalada Muqdisho. dilkaasi toogashada ah oo ka dhacay fagaaraha ku yaala School Plusio ee magaalada Muqdisho ayaa warbixintan waxa ka soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto. abbaare 8 subaxnimo xilliga magaalada Muqdisho ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay xukun dil ku furisay Aadan Sheekh Cabdi Sheekh Xuseen oo ku eedeysnaa inuu fal dil u geystay wariye Xasan Yuusuf Absuge oo bishii September ee sanadkii tagay lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho. xukunka dilka oo ka dhacay barxad ku taala dugsiga tababarka booliska General Kaahiye ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiil kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. xukunka dilka kadib ayaa Korneel Cabdullaahi Maxamed Muuse oo kamid ah garsoorayaasha maxkamadda isla markaana ah afayeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu ka warbixiyay xukunka ay fulisay maxkamadda ciidamada. maxkamadda markay dacwadaas gashay oo istifaac u dhageysatay waxa uu cadaatay in uu ku safoobay sifaalihi hore lagu soo eedeeyay dacwo dhiglaha oo ah dilka inuu soo geystay si baraarkii marka cadeyntii markaatiyaashu ay dhamaadeen. maanta ay tahay 17 bishii 8aad 2013 sida aad wada arkaysaan waxa la geeyay goobtii lagu fulin lahaa dilka toogashada ah. waan la gudtay saacad markay 2 saac ayaa la fuliyay dilka toogashada ah. waana markii ugu horeysay saxaafadda in dil loo soo qabto loona soo xiro loona toogto. ma dhowda ka qabtaa balweyne nin oday iyo nabadoon ah ninkii dilay in asagana loo qasaasay oo loo toogtay. hadda baan jecelnahay wada shaqaynta bulshada dhaxdeeda iyo ciidamada inaysan qarin ifta ku fiiqaan ninkii dhagal qaba ah si sharci loo waafajiyo. waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay Cabdikaafi Hiloole Cusmaan oo ah xogayaha maamulka gobolka Banaadir. waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay helaan sharci adag oo qofka ay soo qabtaan durbadiiba qaban kara. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaan ka codsanaynaa dal aan sharcigiisa adkeen shaqadiisana ma adkaato. waxaan leenahay sharciga dalka waa in la adkeeyaa, maxkamadu waa in la adkeeyaa, ha noqdaan militariga, ha noqdaan muxuu ahaa ii sheeg madaniga, ha noqdaan maxkamadaha sare. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay sharci. xukunkani dilka ah ee ay fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay xukunno dhowr ah oo hore uga fulisay magaalada Muqdisho iyo kuwa kale oo xukun sugayaal ah, balse waa markii ugu horeysay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dil ku fuliso nin la xiriirinayo inuu ka tirsanaa xarakatu shabaab. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho.